wararkii ugu dambeeyay sidoo kale wararkii al-shabaab ay ku qaaday hotel Xayaad iyo sidoo kale xogaa kala duwan ee ka soo baxaya hotelka wararka lagu qaaday ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa saqdi dhexe xalay ku guuleystay in al-shabaab laga saaro hotelka isla markaana la baabiyo waxaa jirtay dhimasho dhaawac soo gaareen shacabka kala duwanaaye sidoo kale dad madax ah oo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ku geeriyooday wararkii al-shabaab ay ku qaaday hotel Xayaad oo ku yaala Kilometer 4 ee magaalada Muqdisho wali waxa xidhan socodka dadka iyo gaadiidka magaalada Muqdisho walow aan la haatan si rasmi ah loo furin waxaana jirta in ciidamada wali ay wadaan hawlgallo waaweyn oo lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada Muqdisho walow aysan si rasmi ah ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan afayeenka ciidanka booliska ee Soomaaliya oo wali si rasmi ah uga hadleen wararkii al-shabaab ay ku qaaday hotel Xayaad oo ku yaala Kilometer 4 ee magaalada Muqdisho warar kala duwan ayaa ka soo baxaya wararkii isla markaana waxaa jirta wararkaasi inuu qaatay muddo gaadhayso 24 saacadood in halkaasi al-shabaab ay ka dagaalanto isla markaana gebi ahaanba dad badan oo shacab ah ku sugnaa hotelka halkaasi lagu xasuuqo ku dhawaad 40 qof ayaa la sheegay in dhinteen ka badan ayaa jira in dhaawaceen waxaa kala duwan ayaa ka soo baxaya wararkii al-shabaab ay ku qaaday hotel Xayaad ee magaalada Muqdisho laamaha ammaanka magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya oo wali ka howlana sidii dadka shacabka ee ku go'doonsanaa hotelka loo soo badbaadiyo ayaa ka soo baayay trayer oo dad isla markaana waxaa jirta in dhulka gabi ahaan la dhigay hotelka isla markaana la baabiyay amar ka soo baxay taliska ciidanka NISA oo hogaaminayo isla markaana oo ka yahay hogaamiye Mahad Salaad ayaa si rasmi ah amar ku siiyay in gabi ahaanba ciidamadu ay dhulka dhigaan hotel Xayaad warar kala duwan ayaa ka soo baxaya saaka wararkii al-shabaab ay ku qaaday hotel Xayaad walow aysan jirin war rasmi ah oo haatan si rasmi ah ku cadeyn karayo sidoo kale qasaaraha dhimashada iyo dhaawaca soo kala gaaray labada dhinacba waxaa jirta in ciidamada ammaanka ee magaalada Muqdisho gabi ahaanba xilligan ay sugayaan ammaanka caasimada iyadoo wali ay jiraan in halbool qaybo kamid ah Muqdisho gaar ahaan checkpoints weyn oo halboola oo Muqdisho isla markaana u ah muhiim socodka dadka iyo gaadiidka ilaa haatan ay xayiran yihiin waxa go'doon filaya in saxaafadda uu la hadlo afayeenka ciidanka booliska ee Soomaaliya isla markaana faa'iido ka bixiyo khasaaraha nafeed iyo sidoo kale khasaaraha kala duwan ee ka dhashay wararkii al-shabaab ay ku qaaday hotel Xayaad oo ku yaala Kilometer 4 ee magaalada Muqdisho xog rasmi ah haatan lagama hayo waxaana jirta ciidamadu ay xalay saqdi dhexe ay sheegeen in bari uu la hadli doono afayeenka ciidanka booliska isla markaana xog rasmi ah uu la wadaagi doono shacabka iyo sidoo kale dowladda Soomaaliya warar kala duwan ayaa ka soo baxaya wararkii al-shabaab ay ku qaaday hotel Xayaad ilaa haatan ma cadda dhimashadii dhaawaca rasmiga ah iyo sidoo kale waxaa la sheegay in isbitaalada Muqdisho qaarkood la geeyay dad fara badan oo dhaawac iyadoo dhimashadu ay aad u tiro badan tahay al-shabaab ayaa markiiba sheegatay wararka lagu qaaday hotel Xayaad isla markaana sheegatay in weerarku si socon doono ilaa amar dambe wali ma jirto dowladda federaalka ee Soomaaliya ciidamada iyo sidoo kale shaqada kale oo ka hadlay wararka al-shabaab ay ku qaaday hotel Xayaad isla markaana waxaa jirta in ay lahaatan warar kala duwan ka soo baxayaan ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ku guuldareystay in al-shabaab la farlata saacadood ku dagaalamayay in saacado gudahood laga saaro gudaha hotelka waxaana jirta in gabi ahaanba hotelka xilligan la baabiyay isla markaana dhulka la simay ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa wali ku sugan goobta weerarku ka dhacay iyadoo ay jiraan in gabi ahaanba socodka dadka gaadiidkaba si rasmi ah ciidamadu ay u xayiraan ilaa amar damana aan la furi doonin insha Allah wararkeena dib ku daawan doona wax ka soo kordha dagaalka al-shabaab ay ku qaaday hotel Xayaad ee magaalada